هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المحاضرة والتي هي بعنوان حسن الخلق مع الله ومع عباده، مع أخونا الشيخ نور عبد الله أبو فيصل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، kelmadeennan maanta aada maqlayseen waxay ku saabsan tahay hadalkii ciwaanka aada maqlayseen ee ahaa akhlaaqda wanaagsan oo lagula dhaqmo allah subxaanahu wa tacaala iyo makhluuq oo abuuray. kelmaddaasi waa kelmad aada u qiimo badan. akhlaaqdu culammadu islaamku way tacriifiyaan, waxayna ku tacriifiyaan tacriifaad aada u badan. waxaa loo baahan yahay marka qof walba muslim ah inuu kaga daydo akhlaaqda wanaagsan sida aan tilmaami doono nabigeena calayhi salaatu wasalaam, leanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim. caaisha radi allahu tacaala canha markii la weydiiyey akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo saxaabi uu weydiiyey ee uu yidhi, yaa umana caaisha uma almu'miniin, bal iga waran akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxay tidhi, wiilkeygiyow qur-aanka ma akrin miyaa? markaasay tilmaantay, waxay tidhi, nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aanka. akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aanka ayay tidhi. ibnu qayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi iyo imaam nawowi raxmat ullaahi calayhi oo ka waramayaan ayagu wa innaka la calaa khuluqin cadiim, waxay leeyihiin hadal aada u wanaagsan. kaana yatakhalaa, nabiga calayhi sala yatakhallaqu biakhlaaq alqur'aan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yani kaga akhlaaq dhiganayey, akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aanka, yani bimacnaa meesha qur'aanka uu aado ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aadayey, meesha wax uu ka joogsadana waa ka joogsanayey. taas micnaheedu waxay tahay qof walba muslima in laga rabo xuduuddiis inay ahaato inuu ku dul istaago, yani meesha qur'aanka uu joogsado. waxa qur-aanka uu ka celiyin bimacnaa inuu iska dhaafo, waxa qur-aanka uu furana in micnihii bimacnaa uu sameeyo ayaa waajib saaran qof walba muslim ah. caaisha radi allahu tacaala canha waxyaalo badan ayaa la weydiiyey, laakiin hadalkaasi yani mar saxaabigaas uu weydiiyey ayay hadalkaa isaga a tiri. waxaa loo baahan yahay inaad ogaato ومن أفضل الأعمال فإن من أفضل الأعمال التي دعا إليها الشرع
waxyaalaha ugu wanaagsan oo shareecada islaamka ay dadku fartay waxaa ka mid ah oo waraqaba fiiha dadkana uu jeclaysiiyey xusnu اlkhuluq, xusnu اlkhuluq, akhlaaqda wanaagsan. akhlaaqda wanaagsan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waa ammaanay ilaahna subxaanahu wa tacaala nabigiisu waa uu ku ammaanay salawaatu اllahi wasalaamu calayh. oo ilaah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay wa inaka la calىa khuluqin cadiim, aayadda hadda aan soo marnay. aayad kalena alla subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyahay fabima raxmati min allahi linta lahum, wanaag alla subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ayaad kuwaani ugu jilicsanaatay. walow kunta fadan galiida alqalbi, haddii aad ahaan lahayd qof fallooci ah ama kirwaay ah ama akhlaaq xun, agagaarkaada saxaabada mayna fariisteen. waa ammaan meesha ugu sarreysay oo alla subxaanaه wa tacaala nabiga uu ku ammaanay. saa darteed akhlaaqdu waa yani min acdami mawaahib illahi licibaadihi, waa hibo alla subxaanaه wa tacaala addoonkiisa uu siinaayo, oo qof waliba akhlaaq ma laha. dadka akhlaaqda leh, akhlaaqda waa dad alla subxaanaه wa tacaala ugu deeqay, ee qof waliba koonkan jooga micnihiisu ma aha in yani uu yahay qof akhlaaq leh, micnihiisu ma aha. nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam marka alla subxaanaه wa tacaala u yiri fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik, akhlaaqdiisana ay tahay qur'aanka sida caaisha radi allahu tacaala canha ay tilmaamayso. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisu siduu allaba subxaanaه wa tacaala u tilmaamay aad ayuu ugu rifqi badnaa, naxariistiisa aad ayay u badnayd. saa darteeda ninkii soo galay masaajidka oo ku kaadiyey qeyb masaajidka ka mid ah, fasajaruuhu way canaanteen oo waxay rabeen inay micnihii ay ku qayliyaan ama ay wax yeelayaan. nabiga wuxuu yihi dacuuhu, faraha ka qaado yidhi. awalan kaadadoo lagu kala gooyo xanuun ay leedahay, marka labaadna masaajidkii ayaa firirkeeda laga yaaba inuu uu gaaro. saaduu nabiga alay wuxuu ku yidhi dhaaf u yidhi. markay kaadada dhamaato wuxuu yidhi akhi lcarab, masaajidkan looguma talagelin wax aan ahayn tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid, waxyaalaha qudraadka ah wasaqda masaajidka looguma talagelin u yidhi. markaasuu xagga intuu tag nin reer baadiyu ahaayo, badiguna waa taqaanaa waa dad iska qalafsan. markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo moxamed keliya naga tago yidhi. nabigu waa ku soo laabtay wuxuu yidhi ya akhi lcarab ina raxmat allahi waasica, maxaana dadka muslimiinta alla gu wada baryaynu yidhi. akhlaaqdu marka waa heybad alla subxaanaه wa tacaala insaanka uu siiyo. waxaa saasoo kaloo ku tusinaysa mucaawiya ibn alxikam assulami oo xadiiث ulcahdi ahaa, markii ay soo degtay waa qumuu lilahi qaanitiin, isagu wuxuu ku dhex micnihii wuxuu ogaa un qof haddii uu hindhiso qofka kale yarxamaka allah, alxamdulilah hadduu yihahdo yarxamaka allah inuu yidhaahdo. markaasaa nin muslim saxaabada ka mid ayaa hindhisay, ninkan islaamkiisa oo cusbaa wuxuu yidhi yarxamaka allah. wuxuu leeyahy faramaani annaasu biabsaarihim, dadka ayaa indhahooda yani saas isoo fiiriyey. markaasuu hadalka kor usii qaaday wuxuu yidhi biabii anta wa ummii, hooyaday iyo aabbahay hal idinku furtee maxaad iisoo fiirinaysaan. fasakatu, way isaga aamuseen. salaadda markay dhamaata nabiga wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam, mucaawiyow salaadan gudaheeda looguma talagelin waxaan ka ahayn tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid. wuxuu leeyahy saxaabiga jaliilka wallahi ma kaharanii walaa shatamanii walaa darabanii wainamaa qaala lii, wallahi maycayn manay aflagaadaynin waxna imana dilin, laakiin wuxuu igu yidhi salaadan looguma talagelin waxaan tasbiix iyo takbiir ka ahayn. wallahi ma arag yani macallin isaga ka wanaagsan weligey ma aragu yidhi. hada min akhlaaqi nabiy sal allahu alيh wasalam. safiiro dadka meeshaan loo soo dariyo biibatooyinka fadhiyo oo waqtigeedu ku dhameeyey, badda oo dhan hal malaay baa qurmisa, wuxuu maanta o dhan raadinayaa akhlaaqdii dadkii muslimiinta ahaa inuu kancaayo fadhi ku dirrada. dadkan yani westranka soo galay oo noloshii loo sahlay ee aan shaqo kalaba hayn. waxaa loo bahan yahay qofka muslimku inuu ilahi subxaana wa tacaala uu ka baqo. marka nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay fabima raxmati min allahi ayaa lagu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik. haddaad micnihii ahaan lahayd nin adag oo qalbi adag, agagaarkaada kuwaana maynay joogteen. yani
facfu canhum iska cafi marka hore kaarkiisaan gubaya kaarkeedaan gubaya dib laysuma arki doonaa leen badanaan qarxi doonaa waan kugu qarxin doonaa ilahayna wuxuu leeyahay facfu canhum wastakfir lahum iska cafi dembi dhaafna ilaahay uu weydiiye kuwa nabi maxamedo kadibna waxaa lagu yidhi washaawirhum fi lamri arrintana kala shoor waxa aad rabto inaad samayso saxaabadaadana bal kala tasho faidaa cazamta fatawakal cala allah marka aad yani go-aan gaarto ilaahay subxaana wa tacaala talada saaro ina allaha yuxibu lmutawakiliin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay kuwa mutawakiliinta bal u fiirso nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadal cajiib ah haddii ilaahay low tawakaltum cala allahi xaqa tawakuli haddiid ilaahay taladu dhiiban lahaydeen aad tala saaran lahaydeen si dhab ah larzaqkum kama yarzaqu طayr taqduu khumaas taruuxu buطaan shimbirto yani ma waxbay meel ku og tahay raashin may meel ku og tahay iyadoo gaajaysanay baxdaa iyadoo dhergana way timaadaa saa darteeda waxaa la yihahdaa waa hooyada ugu naxariista badan ayaa la yihahdaa hooyada ugu naxariista badan buulka intay ka baxdo tasallul طacaamkii ay soo qaaday afka intay halkaa ku haysay caruurteeda siisaa saasoo kale yani meel may ku og tahay xaalad ijtimaaciya la طayr cayn طaayira cayn طayr iyo mukabiraat ilah subxana wa tacaala wuxuu siiyey weyneyso cirka iyadoo joogta irsaaqdeeda dhulka ay ka qaadataa yani waa ti ninka gabi uu ku lahaa fakayfa takhaafu lfaqra wallahu raasiqan waqad razaqa الطayru wاlxuuthu fi lbaxri maxaad uga baqanaysaa huu yidhi irsaaqda maxaad uga baqanaysaa way ku qorantay cabdillahi ibni mascuud hadalkiisa qofka wuxuu yahay waaba la qoray irsaaqda waxaad cuni laheyd waxaad cabi laheyd xuudka ama kalluunka malayga ku jira badda gudaheed ya iyo shimbirta cirkaa maraysa yaa irsaaqa ilaahay subxaana wa tacala quraanjada yaryarka oo buuraha dhexdooda habeenkii mugdiga dhex socoto waxay cunaysa ilahay waa ogyahay annagona waxaa nagala keri waayey waxa la yihahda alhijratu ila daari lislaam maanta waa hijra min daari lislam ila daari lkufri bilcagsi waxay ahayd hijradu in laga tago dhulka gaalo oo dhulkii yani islaamka la aado in aladiina daalimi anfusihim qaluu fima kuntum qaluu mustadcafiina fi lard ilahay laba grub unba kasoo reebay war maxaad ahaydeen kuwii naftooda dulmiyey ilahi subxaana wa tacala malaa'igta markay ku tidhaahdo qaaluu waxay leeyiin kuna mustadcafiina fi lard qala walam takun ard allahi waasica fatuhaajiruu fiiha dhulkan ilaahay soo waasic maaha meelaad kaga hijrootaan ma weyseen ilahi subxana wa tacala kuwaasi ballan wuxuu u qaaday naarta u ballan qaaday laakiin waxaa ilahay uu ka soo saaray laba qolo oo markaas maka ku hartay oo dad waayeelle iyo caruur aan madiina aadi karaynin alla subxana wa tacaala uu tilmaamay kuwaas in alla subxana wa tacala uu dembi dhaafayo nabigana wuxuu leyahy alayh salaam laa taraa naarayhima laba dab isma arkaayaan almushrik walmuslim wuxuu leeyahay qofka mushrika iyo qofka muslimka dabkooda maalinba iskama soo warbaxaayo wuxuu leeyahy anigu ber baan ka ahay qofka dhul gaala inta taga ku noolaada ilahay naguma dilo wuxuu kaluu leyahy nabigana calayhi salaatu wasalaam ana barii'u man jaamica almushrik anigu yani man khaalata almushrikiin alayaa loola jeedaa qofka dhex gala oo ku dhex noolaada oo aan weligiisaba micnihii nahyigaas baan aragba saa darteed culummadu sheekh ibn cuthaymiya koo la mid ah walow masale ijtihaadiya ay tahay waxay ka soo saaraan oo ay ka reebaan ninka xanuunsan oo lagu daaweynaya dhul gaalo iyo nin ganacsada ah oo ganacsi u yimid qofka ku wax baranaya iyo daaciga dadka diinta gaarsanaya waxa intaas aan ahayn ma joogi karaan uu yidhi laakiin dadkan soo qaxay sababo ayay ugu soo qaxeen waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu bal hijradii xasuusnaado qalbigiisana u sheego tawakulka marka ilaahay subxaana wa tacaala hal aayadood suuradan suurat talaaq oo aad taqaanaan ya ayuha nabi idaa talaqtum الnisaa waxaa ku jirta 3 jeer ilahi subxana wa tacala uu soo celiyey waman yatawakal cala allahi fahuwa xasb waman yatawakal waa lasoo celiy waman yataqi illaha waman yataqi illaha waman yataqi illaha lasoo celiyey marka qofka ilaahay talada saarta ilaha ku filan ilahi subxana wa tacala waa ku filan yahay meeqaan aragna meeshaan joogo inta ka tagaan ilahi subxana wa tacala u gargaaray waxaa loo baahan yahay marka inaad ogaato hijrada nafteeda inaysan ahayn yani markaasu alla subxaana wa tacala faida cazamta fatawakal cala allah in allaha yuxibu lmutawakiliin akhlaaqda culimmadu markay ay tilmaamayaan waxay yidhaahdaan waa طabc wa sajiya wاdiin wاlmaru'ata kama fi lqaamuus اlmuxiid wa lisaan اlcarabka waxay leeyihiin marka waa طabc iyo maru'a iyo diin way leeyihin akhlaaqdu isilaax akhlaaqiyiinna waxay leeyihin nimankan oo isilaax xagga culimadan akhlaaq waxay tilmaamayaan waxay leeyihin caada aliraada oo almayl min almuyuul ayay leeyihin yaqlbu cala اlinsani biاlistimraari xata yasira yani lahu caada wqiila اkhulq waxaa kaloo yihahdeen quwaة raasika fi اiraadati waxay yihahdeen waxaa kaloo la dhihi karaya waa quwad ilahi subxaana wa tacala uu ku raasiqayo iraado doonis qofka alla subxaana wa tacaala uu siinayo inuu kala garto waxyaalaha xun iyo waxyaalaha fiican marka akhlaaqdaadu hadday wanaagsan tahay
waxa waaye wax badan baad samayn karaysaa, laakiin haddaad ku mashquulsan tahay kaar baan gubaya iyo waan qarxin doonaa iyo waa ii dhibtay iyo waa ii dhibay iyo waxa la mid ah, waxa waaye akhlaaqdaadu meel xun ayay galaysaa. imam التrmidي min xadiiثi abi darda radi allahu tacala canhu qaala qaala nabiy sal allahu alيه wasalam, nabigu wuxuu leeyahay ma jiro maa shayءun athqalu fi miisaani اlmu'mini ywma alqiyaamati min khuluq اlxasan waina allaha la yubqidu alfaaxisha albadiya. saasuu ley nabig alay slam. marka waxyaalaha ugu badan oo ma jiro wax miisaan cuslaynaya maalinka aakhiro oo qofka mu'minka iyo miisaankiisa u cuslaynaya wax ka badan akhlaaqda wanaagsan. ilahina subxaana wa tacaala waa u caroonaya qofka faaxishka oo albadiya, bimacnaa qofka mar walba xumaha iyo waxyaalaha xun ku hadla. waxaad ogaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'ig ayuu dushaada saaray, waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun. yaquulu subxaanahu wa tacaala, laba malag ayaa dushaada taag, maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid. wuxuu leeyahay ninka la yihahdo xasan albasri, ya bni aadam wukilat bika malakaanin kariimaan ixdaahuma cala alyamiini waalaakhiri can ashimaali facmal maa shayt. ibni aadamow laba malag ayaa lagu wakiishay, midna midigtuu kaa fadhiya, kan kalena bidixda waxaa doonta samey. fain sharan fa shar wain khayran fa khayr walakin tadakar yowma, laakiin xasuuso maalin alla subxaana wa tacala xaggiisa lagu celin doono. maalin alla subxaana wa tacala xaggiisa lagu celin doono, maalinka ayada xasuuso. ilaahayna uu leeyahay wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. waa maalin alla loo laaban doono, naf weliba waxa ay kasbatayna horteedii la keeni doono iyadoon waxba laga dulminaynin. dulbi ma jiro maalinka ayada ah. kan waa madow yahay iyo kan waa saasuu ahaa iyo kan waa reer hebel iyo kan waa qabiilkiis waa fodfaf iyo waa laga fiican yahay iyo heblo waa saas iyo kuwani maya. maalinkaas wax dulmi la yihahdo ma jiro. qof hatee xoolihii kuwii isdulmiyey, laxda nafka ariga ahoo kan geesaha leh, rida geesaha leh iyo midaan geesada lahayn, yani alla subxaana wa tacaala uu kala garqaadaya maalinka ayada ah. wax dulmi a ma jira alla subxana wa tacala xaggiisa, laakiin dadku ayaga ayaa isdulminaya. maalinka ayada ilahay wuxuu tilmaamay in la kala carari doono. akhlaaqda maalinkaasay micnihii ay miisaankaada weyneynaysa, cuslayn doontaa. maalinka yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa bnihi u leeyahay. yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi. maalinka ninka micnihii uu ka carari doono, yowma maalin yafiru lmaru min abiihi, aabbaha iyo hooyada iyo walaalka iyo kulli wax kuu joogsanaya lama arko. wa ummi yowma yafiru lmaru min abiihi, yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi. walaalka iyo hooyada iyo aabbaha iyo wax joogsanaya lama arko. aayadda kalena alla wuxuu leeyahay yawadu lmujrimu low yaftadi min cadaab yowmaidin oo la kor dhoobo, yowmaidin la yidhaahdo, yowmaidin laba jeer unbay qur-aanka kusoo aroortay iyado. marka maalinka ayada waa la kala cararayaa oo wax kuu joogsanaya lama arko. yowmaidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiica uma yunjiih. kalaa inahaa ladaa alla subxana wa tacala u leeyahay. dadkoo dhan hooyihii aabba iyo walaala iyo qabiilkayga dhanba hal cadaabo haddii la doonay aniguun ilaah maalinka ay badbaadiyo ninkaan la taagan yahay. marka maalinka ayada ah ilahi subxaana wa tacala hortiisaa la taagan yahay. alla subxaana wa tacaala waa meesha la hortaagan yahay, waxbana la sheegi karaynin, been lama sheegi karo maalinka ayada, kala dabiraadna ma jirto. akhlaaqda maalinkaas ay marka wax ku taraysaa. xadiidka isaga waa xadiid xasan ah, imaam tirmidi ayaa soo saara, sanadkiisana waa micnihii sanad xasan saan tilmaamay. sheekh albani raxmat ullahi caleyhi isaga naftiisa waa xasan صaxiix tirmidi ley, lakin waa xadiis yani صaxiix ah. xusn اkhuluq culimmada waxay leeyihiin jawaanibu kathiira min xayaati اlmuslim, dhinacyo badan ayay micnihii qofka muslimka ka taabanaysaa fi aqwaalihi wa acmaalihi wa fi cibaadatihi lirabihi wa tacaamulihi maca cibaadih. ilahi subxaanaه wa tacaala aqwaasha iyo acmaasha waxaad ogaataa bilaal ibnu xaarit almusani abi hurayra xadiidka bukhaari iyo sunankaba ku jira, wuxuu leeyahay ina rajula layatakalamu bikalimati min sakط illah laa yulqii laha baalan yahwi biha fi jahanama 70 khariif. qof ayaa ku hadlaya hadal uusan u aabiyeelin, naarta jahanama ayuu gudaheeda ugu hoobanaya 70 sano. u yidhi ixda rawaat oo xadiidkan ka mid ahaa oo wax ka wariyey wuxuu leeyahy kam min kalaamin manacaniihi xadiidu bilaali hada. meeqaa qof oo hadalkan bilaal wax sameyn lahaa uu ka celi yidhi. kam min shatam wa kam min sab wa kam min fujuur nafcaluha walaa natadakar xadiid bilaali hada ina rajula liyatakalamu bikalimati min sakط illah. yani xadiidka isaga ah
meeqaaca iyo aflagaada aan ku jiraa iyo kaaraa la gubaaya iyo waa la kala qabanaya waa la isku diraya aanan xasuusanayn qof ayaa ku hadlaya hadal uusan u aabiyeena naarta jahanama ayuu 70 sano u galaya. imaam axmed ibn xambal raxmatullahi calayhi xilligii sakaraatulmowtka waxaa laga soo guriyaa waxaa u yimid taawus ibn kiisaan alyamani wuxuu guriyaa ya imaam in alaniina yuktab in alaniin yuktab bimacnaa xanuunka hay qofka markuu leeyahy taa nafteeda waa la qoraya uu yiri wasakata alimaam markaasuu aamusay ilaa naftiisa ay ka baxday ibn kathiir naftiisa tafsiirka uu ku keenaa maa yalfid min qowlin ilaa yani aakhir alaayaad uu ku keenaa hadalka isaga. xusn اlkhulq marka waxaa loo baahan yahay jawaanib badan ayay taabanaysaa dhinacyo badan oo nolosha qofka muslimkaa ayay ka taabanaysaa. aqwaashiisa hadalkaaga waa in micnihi u noqdo hadal wanaagsan oo akhlaaq ka muuqato. acmaasha aad samaynayso waa in ay tahay acmaal micnihii markaysaa alla subxana wa tacala acmaasha ugu dirsaday fi cibaadatihi lirabihi wa tacaamulihi maca cibaadatihi. cibaadada alla subxana wa tacala ad uso akhlaaqay u baahan tahay. ila cibaadada nafteeda dharkaagii haddii aad markaysa nijaaso kasoo dhigto lama aqbalaayo. haddaad isqa qaawiso oo sitradii micnihii ama sitradii lagugu talagalay aad ka baxdo cibaadada waxay u baahan tahay akhlaaqay u baahan tahay inaad ogaato in ilaahay subxaanahu wa tacala aad hortaagan tahay. yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinka dadka bini aadamka oo dhan alla hortiisa ay joogsan doonaan. ilahi subxaana wa tacala wuxuu qur'aanku ku leeyahy waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan. addoommadeyda waxaad ku tiraahdaa inay ku hadlaan hadal midka ugu wanaagsan alatii hiya axsanu ina shayطaana yanzaqu baynahum ina shayطaana kana lilinsaani caduwa mubiina. marka shayطaanku ilahi subxaana wa tacaala ballan ayuu u qaaday markaysa isaga inuu naarta u galaayo laakiin shaydaan wuxuu sheegay dad badan inuu akhlaaqda ka xumaynayo u dhuminayo. ilahi subxaana wa tacala aayad kale wuxuu ku leeyahy waquluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan dhaha oo kula hadla. ilahay wuxuu leeyahay idfac bilatii hiya axsanu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wma yulaqaaha ila duu xadin cadiim. bal u fiirso ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay marka qof xumo uu kugu sameeyo wanaaga adigu micnihi samayn. faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa qofka ay colaadi kaala dhexaysay oo cadowtinimo iyo wax dhexdiina ay kala dhex mareen waxaad arkaysaa inuu saaxiib wanaagsan kuu noqonayo mana helayo qofka isaga qofaan sabar badnayn siduu alla subxana wa tacala uu tilmaamayo. ibnu cabaas wuxuu leeyahay amara allahu lmu'miniina bisabri cinda alqadab tafsiirka ibnu kathiira soo guuriya wuxuu leeyahy ilahi subxaana wa tacaala wuxuu amray dadka mu'miniinta inay sabraan markay caroodaan. walxulm cinda aljahl markuu kugu edabdaroodo qof jaahil ah inaad micnihii dulqaad inaad leedahay. idaa nataqa safiihu falaa tajibhu wakhayra min ijaabatihi sakuutu. haddii uu kugu edabdaroodo qof jaahil ah isaga aamuso le gabyaagaas. idaa nataqa safiih falaa micnihii ha u furfurin. hadduu nin jaahil ah kugu edabdaroodo uu hadlo hadalkiisa hadal ka daba wadin waxaa kuu khayr badan inaad ka aamusto yiri. ila haddaad ka aamuso carow la dhimanaya laakiin haddaad nin jaahil hadal la wado de adigu kolley waxaa waaye adaa naftaadii u bandhigay midda ayadaa dhibaatada. walcafwu cinda alisaa uu leeyahy marka waxaa looga talagalay bisabri cinda alghadabi inuu sabro. sabrka 3 aqsaam ayuu leeyahay tamaro badan uu leeyahay siduu nabigan u tilmaamay alayh salaam. marka uu micnihii u caroodo inuu sabro. marka uu qof jaahila ku edab daroodo uu ku qaldamana inuu u dulqaato. walcafwu cinda alisaa'ati dadka xumeeya inuu iska cafiyo oo xumaha inuu sameeyo. faida facaluu dalika casamahum allah. ilahi subxaana wa tacala hadduu saas ay sameeyaan dadku waa badbaadinaya waakhdaca lahum caduwahum uu yidhi. marka cadowgaadu ilahay hoojinaya adna waa alla subxana wa tacaala waa ku wanaajinaya. wasiyada nabigeena calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi oo wanaagsanaa abi dar iyo mucaad radi allahu tacaala canhuma wuxuu faray itaqi llaha xayثuma kuntuma yani itaqi llaha xayثuma kunta itaqi llaha xayثuma kuntana way jirtaa. ayib waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasi bikhuluqin xasan. damiirka tasniya hadii laga dhiga xayثuma ayuu noqonaya marka isaga. haddii hal kali uu yahay waa itaqi llaha xayثuma kunta saasuu noqonaya. marka ilaahay ka baqa meel alla meeshaad joogtaan haddii aad xumo samaysaanna wanaagii daba mariya ayadaa tirtiraysa wakhaaliq innaasi bikhuluqin xasan. dadkana dabeecad wanaagsan kula dhaqma. tirmidi ayaa soo saaray xadiid xasan saxiix saas ayuu leeyahay. ayib ibnu qayim aljawzi wuxuu leeyahy kitaabka fawaa'idka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ibnu jawzi jamaca nabiy sal allahu alayh wasalam taqwa allahi wa xusn اlkhuluq.
nabiga laba shay oo waaweyn ayuu jamciyey cabsida alla subxaanahu wa tacaala iyo akhlaaqda wanaagsan u fiirso taqwa allahi maxaa la yihahda alkhawf min aljaliil walcamalu bitanziil walrida bilqaliil walisticdaad liyowm araxiil waxaa la yidhaahdaa sida cali bn abi aalib uu tilmaamay taqwa allahi alkhawfu min aljaliil in ilahay laga baqo walcamalu bitanziil in kitaabka alla uu soo dejiye lagu dhaqmo walrida bilqaliil waxyaalaha alla uu ku siiyey oo yar ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen in lagu qanco alqanaacadu waa wax aad weyn bini aadamkuna u qanacsan yahay walisticdaad liyowm araxiil in loo diyaar garoobo maalinka aakhiro safrii baciidu wazaadii lam yuballiqunii waquwatii dacufat walmowtu yatlibunii waliya baqaaya danuubi lastaclamuha allahu yaclamuha bisir walcalan uu yidhi ninkii gabyaaga ahaa marka waxaa loo baahan yahay waxaa waye zayd ulcaabidiin qasiidadiisa dheereed oo hadalkaa ku jiray safarkaygu waa uu dheeryahay sahaydeydana meel ima gaarsiiso qubadeydana waa yani daciiftay qubadeyda waa daciiftay sahaydeydana meel ima gaarsiiso geeridana waa igu imaanaysaa huu yidhi laakiin danuub kale ayaan leeyahay anigu aanan ogeyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya uu leeyahay marka waa safarkaas rixla min daari dunya ila daari alaakhira dadka o dhan saasay u safri doonaan nabigeena calayhi salaatu wasalam xadiidkaas marka wuxuu leeyahay waxaa waye ilahay ka baq meel alle meeshaad joogto dhul gaala joog dhul islaam joog meeshaad joog qaaradaha meeshaad doonto ka joog ilahi subxana wa tacala ka baq haddii xumo aad samayso marba isku day wanaagga dabamari way tirtiraysaa dadkana dabeecad wanaagsan kula dhaqan dabeecadda wanaagsan waa haybad alla subxaanaه wa tacala uu bixiyey ibnu qayim wuxuu leeyahy jamaca nabiy sal اllahu alيه wasalam bayna taqwa allahi wa xusn اlkhulq lianna taqwa allahi taqwada alla subxaanaه wa tacaala taslixu maa bayna alcabdi wa bayna rabbihi waxay hagaajinaysaa baynahu wa bayna rabbihi taqwada alle subxana wa tacaala adiga iyo rabbi waxa idin dhexeeya wanaajiya wa xusn اlkhuluqi waxay hagaajinaysaa maa baynahu wa bayna khalqihi adiga iyo makhluuqa dadka waxa idin dhexeeya dadka ilaahay u abuuray ayaa wanaajinaysa fataqwa allahi taqwada alle subxaanaه wa tacaala alla oo laga baqo waxay keenaysaa maxabada alle subxaanaه wa tacaala wa xusn اlkhuluqi yadcu الnaasi ilaa maxabatihi saasuu leeyahy fawaid ku sheegayo intaha kalaamuhu raximah اllah walama su'ila nabiy sal اllahu alيه wasalam bal akhlaaqda u fiirsan nabiga markii la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam waxa ugu badan oo dadka jannada ay ku galayaan ayaa nabiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam maxaa ugu badan yani dadku ay jannada ku galayaan nabiga wuxuu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam hadal cajiiba wuxuu yihi nabigeena calayhi الsalaatu wasalam an akthari ma yudkilu الnaas aljanna qaala taqwa allah wa xusn اlkhuluq waa xadiid xasan albaniyina saxiix ayuu ka dhigay saxiix sunan tirmidi ayuu isagoo ku saxiixiyey nabiga markii la weydiiyey wuxuu leeyahay waxaa waaye can akthara ma yudkilu الnaas aljanna dadka wax uga badan oo jannada ay ku galayaan rasuulka allah noo sheeg qaal wuxuu yihi taqwa allahi wa xusn اlkhuluq u yihi taqwada alle subxaanaه wa tacala ee akhlaaqda wanaagsan inta ugu badan janno wax lagu galo oo lagu mutaysto intaas ayada aliimaan asaxiix walcamal saalix ayaa looga bahan yahay qofka muslimkaa akhlaaqdiisana inuu micnihi ay wanaagsanaato saa darteeda wuxuu haddii camalku uusan waafaqin iimaanka qofka dhan ba naqanaayo hadduu akhlaaqdaada qofka aysan wanaagsamayn mar dhamaystirmaya iimaankaagu hadduusan micnihii akhlaaqda wanaagsan waafaqin abi hurayra radi allahu tacaala canhu waxaa laga wariyaa ana nabiya salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalam wuxuu yihi akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqaa midka ugu dhamaystirka badan muminiinta xagga akhlaaqda waxa waaye midka akhlaaqdooda ay wanaagsan tahay iimaankooda midka ugu dhamaystirid badan waxa waye muminiinta midka akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay nabiga alayh salam wa khiyaarakum linisaa'i nabiga alayh salam wuxuu le waxaan idinku khayr badan dadow adinkao dhan markay lisu tago waxaa idinku wanaagsan o idinku khayr badan midka xaaskiisa u wanaagsan saasuu leeyahy nabigeena alayhi salatu wasalaam xadiidka isaga ah tirmidi naftiisa ayaa soo saara waa xadiid xasan saxiix le waana xadiid saxiixa dumarka marka waa amaana waxa loo dhiibay akhlaaqdooda waa inay wanaagsan tahay waa inay cafiifo tahay waa inay labisan tahay libaaska sharciga alle subxana wa tacala uu ku waajib yeelay waa inay caruurteeda iyo gurigeedu ay ka warqabto waa inay ikhtilaadka iska dhaafto waa inay hadalka xuna iska dhaafto waa in dumarka intay soo shiri telefonka dhegta ay ku haysa iska dhaafto waa inay iska dhaafto waxay leedahay ma cafinaya kaarkan sii daynaya waa inay iska dhaafto wareega xaafadaha ay wareegeyso waa inay iska dhaafto dhexgalka dadka micnihi aan ku habooneyn waxaa loogu talagalay akhlaaqdeedu inay tahay sida nabigeena uu tilmaamay calayhi salatu salam leanna aayadaha u fiirso cibradu waa bicumuumi lafdi sabab khaas baa kusoo degto qur-aanka haddii ragga khitaabka uu micnihii looga hadlo oo inta badan ilaa ragga nabiga alayhi salatu salam agtiisa ay ka dhowaan ayagii tusaale loo bixiyo dumarka khitaabkaas laga hadlayay ku jiraan ayagu laakiin sababtu ha ahaato sabab khaas ah lafdiga caamka ah sababtu khaas ha naqato hadee doonto laakiin lafdiga caam u noqonaya cinda culamaa usul wax walbo ragga lagala hadlo way ku jiraan
axaadiista aan sheegayn ayadahan ragga un baa lagala hadlayo oo nabiga ag joogay ma aha, dumarka way ku jiraan, intaasay soo dhexgalayaan. saa darteed xataa marka la dooranayo marka hore waxaa fiican in lagu doorto diin, sida raggaba loo micnihii nabiga u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in micnihii uu yihi fadfar bidaati diin tarabat yadaag. waxba kuu tari mayso kayf tuulaha kam wasnaha tuul shacraha, timaheeda madheer yihiin, ayado ma caddahay, lacag ma leedahay, xagga ma joogtaa, waxba ku tari mayso. nabigu wuxuu le akhlaaq ku dooro yiri, gabar akhlaaq leh doora. nabiga ragga markii la dooranayo muxuu tilmaamay dumarka diin ku doorto yiri. ragga markii xadiid abi hurayra wuxuu le idaa ataakum man taradawna diinahu wa khuluquhu yiri, hadduu idin yimaado qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tihiin fazawajuuh. maanta ceebta taagan waxay tahay marka laga hadlayo dumarka, gabadha haddii la arkay inay nin la socoto waxaa leeyahay waa dhillo, waa saan, waa lagu caynaya. ragga waxaa la leeyahay hadday dhalinyartii ay arkaan la arko ayagoo gabdhuhu isu babedelayo waa xariif, waa xariiftamaya laleeyahy. ninkaa isaga nin karmeed, nin karmeedka waxaa loo yaqaana ninka dadka dilaayo oo bistooladaha wata oo dadka qaarjinaayo oo dhibaataynaya, nin karmeedkaasaa loo yaqaana. waxaa loo baahan yahay qofka in akhlaaqdiisa ay wanaagsanaato, gacantaada iyo afkaaga in laga badbaado. gabadha muslimadda ahna waxaa la rabaa gacanteeda iyo afkeeda in laga badbaado. hadday dumarka inta shiriso telefonka dhegta ku hayso, baalkan freega maanta naqday, iimaha iyo whatsappka iyo facebooka iyo waxaad arkaysaa akhlaaqdii oo dhan in laga tegi. wallahi waxaad arkaysaa gabdhihii xaaladooda meeshay marayso iyo wiilka xaalkooda meeshuu maraayo markaad aragto facebook, markaasaad fahmaysaa mustawaha aan ku sugannahay sifir inuu yahay. weliba yani ilaahay ha u naxariisiyaad bara dad badan oo hayey balaayadan markay soo wada galeen qurbaha oo dhan, diintii oo laga laabto, diintii oo laga shakay, qof aan tukanaynin. yani zinada nabigan markuu tilmaamay alayh salam wuxuu yihi baashaas way fidi doontaa u yihi. aakhir zamanka calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah zinada oo fidayso yihi. maanta waxa weye qof waliba gurigu keligii degan yahay, adigu bal u tali. kumanaan waxaa joogta waalidkooda markay soo qaxeen ugu dambeysay aan ka warqaminba noloshooda waxa ay tahay. ayay akhlaaqaan ku sugannahay. akhlaaqda maanta halka meesha ay marayso, meesha la taagan yahay. ninka gabyaaga wuxuu yidhi ummaddu waxay baaqi tahay, alumam baqiyat, hadday akhlaaqdooda baaqi tahay faidaa dahabat akhlaaquhum dahab buu yidhi. akhlaaqdooda hadday tagto way tagayaan yidhi. akhlaaqi maanta way luntay. kalaabyada laga kala furay caasimadaha oo 4 galabdhimo ilaa loo kala hooyanayo, heer waxaa la gaaray ninkan gaalkacyo akhlaaq xumada inuu isu keenay cabdiweli fulan ninka la leeyahay, inuu gabdho iyo wiilo intuu isu keenay, muusigna u shiday, habeen iyo maalin micnihii waxay oo nabiga lagu caayo. akhlaaqda halkaasay taagan tahay. war ilaahay subxana wa tacala aan ka baqno. nabiga calayhi salatu salam wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu akhyaarsan oo ugu wanaagsan ninka xaaskiisa u wanaagsan u yihi. laanna nabiga wuxuu tilmaamay inay yihiin dad lasoo qafaashay ogteena jooga, dad qafaalan oo noo qafaalan inay yihiin. markaasuu nabigu wuxuu ku tilmaamay alayhi salaam mid adinka idin ka mid ah ayaa xaaskiisa wuxuu u dilaya ka micnihii jald alcabdi uu yidhi. gelinka dambena wuxuu rabaa maanta intuu u dilo caawa wuxuu rabaa inuu la seexdo. abbaay hay waan ku jeclaha, waa qofkii oo dhabankii oo dhan ba ibra wejigay bedelan yihiin. maxaa jeceshahay qofka gelinka hore disho gelinka dambe see ula seexanay waxay ugu raadsanaysaa. nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu salam waxaa idinku wanaagsan dadow ragow saad rag u tihiin kuwa dumarkooda u wanaagsan u yidhi. 12 maanta in fadhi kudiraka la fadhiya afkaaga iyo gacantaada ma laga badbaadi waa masale adiga ku taalla. bacdu salaf waxay leeyihiin xusnu lkhuluqi laba qaybood ayay micnihii u dhigantaa. axaduhumaa maca allahi caza wajalla, mid ka mid ah waa in ilaahay subxaana wa tacaala lagula dhaqmo. waxaad ogaataa akhlaaqda wanaagsan waa laba, mid waa maca allahi caza wajal, waana mid ciwaanka aan ka dhignay. waa in qofka uu ogaado marka wahuwa an taclama ana kula ma yakuna minka yuujibu cudran. wax alla waxa adiga xaggaaga ka yimaada, bani aadam baa tahay, cudurdaar ay leeyihiin. wa ana kula ma yaأti min allahi yuujibu shukra. wax ilahay xaggiisa ka yimaadana waxay waajibinayaan in loo mahad celiyo. maskaxda madaxa dad aragtaan wuxuu u samaysan yahay sida guriga oo kale. qolofkan sare waxaa ka hooseeya xub, maskaxdiyaa ku jirta, biyaa ku dhex jira. halkan hore waa yani daakirada, xaggan dambena waxbay ku xasuusataa. haddii jug yar maskaxda ay gaarto, centerka bini aadamka o dhan ayaa neerfaha qalqal ku dhaca. wadnaha ma shaqaynaayo, qalbiga dadka qaar waxay umaleyan wadnaha keliya, maya, wadnaha maskaxdaa laga xukumaa. hadday maskaxda wax gaarto wadnaha waa dhimanayaan. adiga sidaad u samaysan tahay fiiri marka lagu abuuray ilaa haddadan sidaad isugu rakiban tahay oad u samaysan tahay an adiga isfiiri. haddaad is ogaato waxaad ogaanaysaa inaad tahay nin aad u daciifa. ilahin wuxuu le wakhuluqa alinsaanu daciifa. dad ayagoo taag darana abuurna alla u yidhi. maxaa laga abuuray marka horeba min maain daafiqin yakhruju min bayni sulbi wataraa'ib. biyo yaroo lisu geeya ur badana alla subxana wa tacala maraaxil u mariyey aa lagaa sameeyey.
markaasa waxaa lagaa kari waayey salaadaas kaliya igu mahadceli 10 daqiiqadood 10 daqiiqo oo maalinka yani salaada duhur ka mid ah markii la isu geeyey waa 50 daqiiqo waxaa meeshaas noogu jira 23 saacadood iyo 10 daqiiqo ayaa meeshaas ku jirta oo wax meel ay ka baxday aan lahayn cimrigeena haddii la isu geeyo haddii aad tahay 60 jir 60ka markii laba loo qeybiyo 30 ka mid waa habeen 30 ka mid ana waa maalin 30ka habeenka ah waad jiiftay 30ka maalinka ahna waa soo jeedi 30ka habeenka ah iyo 30 markaa u qeybinay haddii habeen iyo maalin uu yahay 30 habeen uu yahay 30 maalin uu yahay habeenkiina la jiifo maalinkiina la soo jeedo 60 markaa tahay 30 sanad cibaado samaysay waa 30 sano oo jiif ana waa jiiftay ilaa maalinkii waa habeen iyo maalin 60ka 30ka aad soo jeeday 15 sano qaangaarkaaga marka laga saaro 30kii jiifka ahaa iyo 15kan marka la isku daro 45 sano waay 15 sano ku soo hareysay 60 jir markaa tahay cibaadada aad samaysay cibaadada saxda aad samaysay 15 sano intay la agtahay intay dukato 5 salaadood mid kun jirta 15 sanadood misaal aad dukuneys misal aad dukuneys nabigu wuxuu leeyahay inaa 60 sano dukanayay salaadiisa waxba ka jireen waxaa laga yaabaa sujuudu inuu toosiyo rakuuc uu xumeeyo rakuuci macnaheedu inuu toosiyo sujuudu uu xumeeyo mid kale wuxuu ku tilmaamay nin tuug salaadiisa xad ayuu marka 60kii nafteeda laba markii loo qeybiyo 30 baad macnaheedu cibaado samaysay 30kii cibaado aad samaysana 15 sano ka hor waad yareed 15kaas la isku haystaa waxaad samaysay waxaad u malaynaysaa wax badan inaad samaysay marka akhlaaqdeena marka salafku waxay leeyihiin wax alla waxa xagga ka imaanaya alla subxaanahu wa tacaala haddii wax wanaagsan lagu siiyo mahad celinay u baahan tahay calooshaada iyo kaadada kaa baxaysa iyo saxarada kaa baxaysa iyo dhiidka kaa baxaayo iyo waxaan wada shaqaynaya mis xisaabisay ciddada yarta hadday xanuun micnihii kaa qabato habeenka lagama seexan karo bahalka fiixa la yidhaahdo oo halkaa ka soo baxa xanuunka u leey waad ogtihiin lama seexan karaya habeenkii marka waxaa loo bahan yahay qofka muslimka inuu xasuusnaado mahad celin alxamdu lilaahi salaada aniga alla wuxuu leeyahay aniga addoonkaygaan u qeybiyey walcabdii maa sa'al addoonkayga wuxuu i weydiistuu leeyahay waidaa qaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa la qeybi salaada qofka muslimka waxaa laga yaabaa salaada suux inuu ka seexdo saa darteed akhlaaq xumada waxaa ka mid ah inuusan micnihii biyo kuleel isagoo haysto oo dhulkan joogo oo waxa muwafar ay yihiin qofkii salaada lagu kiri waayo war salaada duko ma jirto akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in qofka masaajidada laga helo safka hore laga helo waayo saxaabadu waxay leeyihiin waxaan ku tuhmi jirnay munaafiq qofka salaada subax iyo aan imaan iyo salaad subax iyo salaad cishaa qofkaan dukan soo nabigan u tilmaamay alayhi salaam adkhulu salaat almunaafiqiin waxaa waaye salaatu alcishaai wa salaatu alfajr weeri labada rakcadood oo fajrka ka horeysa wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaam yani hadal cajiiba wuxuu leeyahay waxaa waaye laba rakcadood salaad subax ka horeysa ayaa ka wanaagsan dunida iyo waxa ku sugan ركعتا قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها wuxuu leeyahay man صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبن أحدكم في ذمته salaada subax qofka dukada salaada subax dadka dukada oo hala salaada oo fajrka soo xaadar saxaabadu way ka baqan jireen way iska ilaalin jireen annagana waaba la jiifaaba sida nabigu u tilmaamay qadaadka shaydaan kaga kaadiyay nabigeena calayhi salaatu salaam marka mid labaad waxay tahay midaas mahad celin ilaahay wuxuu ka rabaa inaad u mahad celiso ilaahay waaba caruura lagu siiyey maala lagu siiyey lacaga lagu siiyey waxa weeye caafimaada lagu siiyey amniya lagu siiyey waxaad u baahan tahay inaad ilaahay ugu mahad celiso alxamdulillah salaadan waa mahad celin waay marka inkastoo alxamdulillah thanaa inay tahay oo yani amaan alla subxaanahu wa tacaala ay culimmadu ku tilmaameen laakiin haddana qolkaa laftiisa waa uu jiraa mahad celin inay tahay midda labaad waxay tahay xusnu lkhuluq maca annaasi dhammaantiis markii laisoo geeyey waa laba nooc badel ilmacruufi qowlan wa ficlan carabkaaga iyo gacantaada iyo afkaaga in laga badbaado wa kafu ladaa qowlan wa ficlan badel ilmacruuf wanaagoo laisku bedesho iyo kafu ladaa in laga joogsado wixii dadka micnihii lagu dhibaya dhibkoo laga joogsado qowlan wa ficlan carabkaaga iyo gacantaada afkaaga in laga badbaado intaasaa laga wadaa micnihii qofka marka jariyin waxaa waye biman tamasaka haada qofka kaas qabsado carabkiisi iyo qabsada kaasa jari la yirahda qof dhiiran waa kaa isaga maraatibada marka dad u baahan tahay ay leedahay wanaaga xusnul khuluq ay leedahay Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxay leedahay innal mu'mina la yudriku بحسن خلقه درجة الصائم القائم qof taagan salaad dukanaya ayaad la mid tahay qofka mu'minka ah haddii akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay inda almu'mina la yudriku wuxuu ku gaarayaa bixusni khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsan darajo wuxuu ku gaarayaa sida qof yani siyaab u taagnaa oo caawo dhan dukanayo kale laqad kaana nabiy sal allahu alayh wasalam acdamu nnaas khuluqan
ninka u akhlaaqda wanaagsan u akhlaaqda weyna u ahaa nabiga faman axaba an yahtadiya ilaa macaali اlakhlaaq akhlaaq mideeda ugu saraysa dad u daban aad micnihi u baahan tahay falyaktadi bimuxamed sal allahu alيه wasalam nabigu ku daya calayhi الsalaatu wasalaam imaam tirmidi wuxuu warinaya xadiid anas ibn malik radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay anas ibn malik radi allahu taala canhu an khadamtu nabiya sala allahu alayh wasalam 10 siniin nabiga ayaan 10 sanadood u shaqeynaya bal u firso waxaan u khidmaynayey nabiga 10 sanadood famaa qaala lii ufin qatun weligay uf ima dhihin uu yidhi wamaa qaala lii shayin sanactuhu waxa aan sameeyeyna ima dhihin lima sanacta maxaad u samaysay walaa li shayin taraktu lima tarakta wax aan ka tagayna weligay ima dhihin maxaad ugu tagtay nabigeena calayhi salatu salaam marka waxaa waaye xadiidkaas in almumina layudraku bixusni khuluqihi waxaa waye albani waa u saxiixinaya saxiix abi daawuud kan kalena asalkiisa xadiid anas bin malik tirmidi yaa soo sar lakin asalkiisa wuxuu ku jiraa bukhaariga ayib وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi لقيت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه قلت waxaan ku yihi bal iga waran صفada nabigeena عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بن عاص ayaan la kulmay waxaan ku yihi صفada nabiga عليه الصلاة والسلام bal iga waran towreed ma lagu sheegay qaala ajل yihi والله إنه لموصوف في التوراة يعني waa ku sifaysnaa nabigeena عليه الصلاة والسلام ببعض صفاته sida qur'aankaba alle subxaana wa tacaala ugu sheegay nabigeena alayh slat slam ayaa towreedna micnihii lagu tilmaamay oo ilahi wuxuu leey ya ayuha الnabiy ina arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira markaasuu wuxuu yihi waxizan lilumiyiina anta cabdii warasuulii nabiga alayh salam ilahi wuxuu ku yihi adiga addoonkaygaa tahay oo rasuulkayga samaytuka waxaan kuu bixiyey mutawakila laysa bifadin walaa galiidin walaa sakhaamin fi laswaaqi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid adag ma ahayn mid qaliid ah ma ahayn mid xanaaq badan mana ahayn mid suuqyada iska wareega ilan meelaha ugu xun oo noola tilmaamay waa suuqa meelaha ugu fadli badanna waa masaajida walaa yadfacu bisayi'ati sayi'a xumahan xumo ummadda u mari jirin nabiga alay slam haddii xumo lagu sameeyo xumo micnihii kuma bedeli jirin walaakin yacfu wayakfir laakiin dadku waa wacfin jiray dembi dhaafun ilahi u weydin jiray walaakin walan yaqbidahu allahu xataa yuqiima bihi lmilata alcawjaa macnihii nabiga calayhi salatu salaam ilahay ma qibloon ilaa u toosiyo diinta micnihii toosan bian yaquluu laa ilaha ila allah wayaftaxuu biha acyunan cumya waaadaanan suma waquluuban gulfa xadiidka isaga ah waan soo hormariyay sanadkiisa xasaan ibnu thaabit oo nabiga ammaanayay kacb ibni malik iyo xasaan ibnu thaabit waxay ahan gabyaaga nabigeena alayh slat slam wuxuu leeyay wa axsanu minka lam tara qatu cayni waajmula minka lam talid الnisaءu khuliqat mubara'a min kuli caybin kaanaka qad khuliqta kama tashaau indha weli wuxuu leeyahay qof adiga kaa fiican weligeed indha ma qaban u yihi wa axsanu minka lam tara qatu cayn qof adiga kaa qurxoon indha weligood ma qaban indhahayga weligood ma qaban u yihi waajmula minka wax kaa qurxoon lam talid الnisaءu haweeney ma dhalin qof adiga kaa qurxoon waxaad u malaysa micnihii wuxuu leeyahay marka khuliqta mubara'a min kuli caybin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku abuuray inuu kaa beryeelay ceeb oo dhan u yihi ceeb oo dhan ilahi subxana wa tacaala kaa beryeelay cabdullahi mubaarak wuxuu dhahay raxmat ullahi calayhi hadal cajiiba cabdullahi mubaarak waxaa waaye jaamic culuum walxikam ayaa lagu soo guuriyaa wuxuu leeyahay ibn rajab aa soo guuriyay xusnu اlkhuluqi طلاaqة الwجه وbdl الmacruufi وkf الأdى وan taxmila ma yakunu min الnaasi wuxuu leeyahay xusn اkhulq akhlaaqda oo wanaagsan sifaatkan qofka muslimka lagu yaqaano akhlaaqdiisa wanaagsan tahay xusn اkhulq akhlaaqdiisa inay wanaagsan tahay طalaaqaة الwجhi wejigiisa oo micnihii furfuran oo weji cabuus usan ahayn وbadl الmacruufi wanaagi uu dadka uu bedelo uu tusiyo وkf الأdى xumihii uu ka joogsado dhibkii uu dadka ka dhaafo وan taxmala in micnihii waan taxmila inuu qofku u xambaaro waan taxmila ma yakuna min الnaasi inuu u xambaaro dhibka dadka kaga imaanayo u ku sabro saa darteed hadalka waa hadal aad u qiimo badan dhibkaaga dadka inaad kala joogsato nabiga wuxuu leyahy alayه الslam waina min الnaasi naas mafatixu اlkhayr wamaqaliqu shar yiri dadka waxaa ka mid ah dad furo u ah khayrka shartana xiraa yiri kuwo waxaa jira waxaan xumo ahaynba aan sheeginba dadku maanta waxay jecel yihiin bbcda iyo wararka iyo facebook iyo idaacadaha markii la fiirsanaya universal iyo waxaa la jecelyahay xumihii keliya in la sheego war maanta idaacadu maxay sheegtay waa la hoogay
qaraxaa dhacay ummad badanaa baaba'ay dad muslimiina dagaal baa dhacay soomaaliya qof kama noola ummaddii way baaba'day waa la kala tegey waa intaasoo qabiila isku dhacday waxaas haddii la yidhahdo wuxuu leeyahy maanta bahasha way shidneed laakiin haddii la yidhaahdo roobaa da-ay dadkii barwaaqay galeen maasha allah jidadkiyaa la dhisay ummaddii way heshiisay meelaa la wada aaday dadku way isu sabreen arrinta way fiican tahay mustaqbal fiican aa la yeesha wuxuu ku leeyahay wallahi arrinta kole waa arkaynaa waxa dhici doona hadda balaayo inay dhacduu rabaa ninkan saa darteeda marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu taxamul uu leeyahay dhibka dadka kaga imaanaya waana sifaadka lagu yaqaano dadka madaxda ah haddaad aragto madax aan dulqaadanayno dadkooda u sabrayn ogow waxbaa khal yani sifadii qofkii hogaamiye ahaa ayaa maqan qof carab badan wuxuu doona samaynayo sifaadka qofka madaxda looga bahan waxay tahay inuu yahay qof dhimrin badan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo uu tilmaamay xadiidka caaisha ninkii ninka yahuudiga uu yimid uu yihi assalaamu calaykum oo caaishana inta xanaaqday ay hadal adag ku tiri wuxuu yihi caaisha faraha ka qaado yidhi ma maqlin miya aniga waxaan rasuulka alla ma maqli miya wuxuu ku leeyahay adiga ma maqli miya waxaan ugu jawaabay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaa waaye mahya caaisha ku yidhi waa uu ka celiyey ilaahay wanaag ma keen ilaa wanaag uu ku bedelaa walaa yanzicu rifqa min shay ilaa shaanu inuu alayhi salaam rifqiga haddii shay laga saaray dhibrinta waxa waaye xumo unbaa dhacaaya xadiis an ibni malik radi allahu tacala canhu qaala qaala nabiy sal allahu alayh wasalam isagana wuxuu tilmaamay iyaaka wa kula amrin yuctadaru minhu ayib ninkii shaacirka ahaa wuxuu leeyahay sidaan soo hormeeyey wainama alumamu alakhlaaqu ma baqiyat faida dahabat akhlaaquhum dahabuu midka kalena wuxuu leeyahay salaaxu amraka lilakhlaaqi marjicuhu faqawimu nafsa bilakhlaaqi tastaqiimu amhiladaas marka way tiro badan yihin ayagana oo gabyaadu ay leeyihiin qofka muslimkana waxaa lagu qiyaasi karaya inay yani akhlaaqdiisu wanaagsan tahay taa ayada ayaa bimacna lagu fahmi karaya xadiiثu curwa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi ma khuyira nabiy salى اllahu alيh wasalam bayna amrayn ila اkhtaara aysaruhuma ma lam takun ihma nabiga alayhi salatu salam hadii laba shay la dooransiiyo midka ugu dhibka badan ma qaadin jirin midka ugu dhibka badan oo ugu adag ma qaadin jirin midka ugu fudud qaadin jiray salawaatu llahi wasalaamu aleyh haddaysan ahayn wax dembiya lakin hadday tahay wax mani xurumaadka alle subxaana wa tacaala lagu xadgudbayo hadday tahay nabigu wuxuu ahaa midka ugu fogaanshaha badan ayuu ahaa oo ka taga xumaha hadday shayda mnihii wax xurumaadka alle subxana wa tacaala yani lagu xadgudbayo hadday tahay nawaas ibni samcaan alansaari isaga wuxuu leeyahay nabiga ayaan weydiiyey can albiri wاlithmi wanaaga birka samafalka iyo wanaaga iyo ithmiga iyo dembigaan weydiiyey albiru xusn اkhuluq wy nab slam wanaagu iyo samafalku waxaa waaye xusn اkhuluq yidhi akhlaaqda wanaagsan wاlithmu ma xaaka fi sadri ithmigan waxaa wax laabtaada kusoo lalaabtay waxaan xaaraan miya xalaal miya iska daaya inuu shayga wax xun yahay taasaa lagu fahmaya waxaadna dhinacaysaa dadka inay micnihi kugu fiiriyaan saa darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii albani naftiisa irwaa qaliil uu ku saxiixiyey nuuraddayn mahaythameyna mujmac zawaidka uu ka soo saaray wuxuu nabigu uu ilaahay ka baryayay wuxuu dhahay nabigeena calayhi salatu wasalaam ilaahayo sida micnihii akhlaaq abuuristeeda aad u wanaajisay akhlaaqdeedana u wanaaji xadiid kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa oo isaga naftiisa saxiix ah ilaahay waxaad igu toosisaa hanuunka midiisa wanaagsan qofku igu toosin kara ma jiraan adiga ahayn igana leexi waxyaalaha xunka ah qof iga leexin karaan adiga ahayna ma jiro xadiidkaas waa xadiid muslim uu soo saaray min xadiidi cali bn abi aalib wamacluum nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaan wanaagsanayna dadkan ma weydin jirin waxyaalaha calaamadaha lagu garto marka dabcan way tiro badan yihiin xusnu khuluqa lagu garto oo loo baahan yahay qofka muslimka bimacnaa inuu aado waxaa loo baahan yahay inaanan ka tegin akhlaaqda wanaagsan inaan ogaano akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu gartaa ixsaanka qofka samafalka badan albir ixsaanka iyo birka iyo nasiixada iyo tacaawunka iyo bashaashat lwajhi iyo xishoodka iyo xikmada iyo raxmada iyo rifqiga sakiinada iyo sabarka iyo aamusnaanta badan waxaa kaloo lamid ah culuwlhima qofka inuu wax badan wax weyn ku haminayo inuu sameeyo wax badan inuu barto qanaacada oo kale muru'ada sharafta qofka bani aadamka waraca xalaal quudashanimada alwafaau bilcahdi ballantoo la oofiya kadamulqaydi caradoo micnihii la qarsado iyo kadam sirta oon la faafin si wareeraha iyo wax lamidka ah iyo alcadlu iyo cadaalada akhlaaq madmuuma waxaa kamid ah alisaaa xumeynta iftiraa walbuhtaan isku been abuurashada ifshaau sir sirtoo la faafiyo albukhl washux bakalnimadu alintiqaam argudsiga watajasus isjaasuusida iyo xasadka
iyo xoqdiga qofka bini aadam ku jira khabudka waxyaalaha xunkoo la sameeyo alkhadaac qofkii micnihii iyo khiyaanada iyo khadaaca waxaa lamid ah sukhriya iyo walistihzaa jaajaaska iyo suu dhan malaha xun adulmi qofka in qof uu dulmiyo alcujba iscajabinta iyo qadarka ballantoo laga baxo alcudwaan yani colka iyo dagaalka iyo dhibaatada iyo coleytanimada iyo dagaalka tirada badan le alkadib beenta alkibr isla weyninka oo kale almakru walkaydu dhagarta iyo makriga oo kale naqd lcahdi ballantii oo laga baxo annamiima dadkoo laisku diro wagayri dalika min calaamaadka ayagana ku tusinaya waxaa jira calaamado aan fiicneen ah oo ku tusinaya akhlaaqda qofka inay xun tahay kuwa dambe markaan sheegay kuwa horena waa waxyaalaha ugu wanaagsan oo qofka haddii laga helo ay fiican tahay walaalayaal marka intaas ayaan kusoo koobaya waxaan ku dhamaystirayaa un qolooyinkan internetka iyo facebooka aadka ugu badan ee raba wax walbay maqlaan inay gudbiyaan waxaad ogaataa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qabsan doono maalinka aakhiro waxyaalaha aadka u tirada badan leh oo nabiga uusan dhihin o aad gudbinayso ilahay ka baq subxaanahu jala wacala waxaan alla ka baryaynaa subxaanahu jala wacala inuu nacafiyo akhlaaqdeedana uu wanaajiyo waxaan alla subxaana wa tacaala ka baryaynaa in yani uu markaysaa beenta iyo isku dirka iyo dagaalka iyo colaada dadka muslimiinta ah ka dulqaado ilahay waxaan ka baryaynaa akhlaaq wanaagsan aakhirana inaan la kulanno anagoo sunnada ku sugan وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هدي أن قلدما ونفتيدي شيطانك إلهي رسولك سبر أيكين